xisbi uu hogaamiye u noqon doono isla markaana uu garwadeen ka yahay madaxweynihii hore ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo maalmaha fooda inagu soo haya. xisbi la magac baxay midowda nabadda iyo dimuqraadiyadda Union for Peace and Democracy ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda lagu dhawaaqo, kaas oo hogaamiye u noqon doono madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud. sida wararku sheegayaan, xisbigan ayaa waxaa ku midoobi doona xisbigii daljir kutalada horsocod PDP iyo siyaasiyiin kale, waxaana xubnaha ugu firfircoon xisbigan ka tirsan yihiin baarlamaanka labada aqal. xisbigan ayaa durba la shaaciyey astaanta ama loogada uu yeelanayo, iyadoo shirweyne xisbiga uu isugu imaan doono lagu ansixinayo dastuurka xisbiga. wararka ayaa sheegaya in munaasabad weyn oo lagu shaacinayo xisbiga ay ka dhici doonto magaalada Muqdisho maalinta Khamiista ee fooda inagu soo haysa. shirweyne ay shalay ku yeesheen magaalada Muqdisho, xisbiga daljir ayaa waxay ku shaaciyeen inay si rasmi ah ugu biirayaan midowga xisbiyo qaran oo hal xisbi isku noqonaya, iyadoo dhaqangalkiisa uu bilaabmanayo maanta oo 30 bisha Sebtembar ah. shirar ka socday gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa lagu heshiiyey inay hal xisbi ku midoobaan xubno siyaasiyiin iyo xildhibaano mucaarad ah, waxaana xisbiga la filayaa inuu noqdo xisbiga ugu tunka weyn ee mucaaradka ay ku midoobaan.